gaadiidka nooca yar ee loo yaqaan tigta ayaa gaadiidka loogu isticmaal badan yahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. gaadiidkan yar ee u kala goosha xaafadaha magaalada Burco ayaa muddooyinkii u dambeeyay ka cabanayay sixir barar baasan oo saameeyay shidaalka. haddaba gaadiidkani ayaa maalmihii u dambeeyay kor u qaaday shilinka ay ku raacaan bulshada dabaqada hoose ee ku nool magaalada Burco. haddaba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur ayaa shir jaraa'id oo qabtay maalinnimadii shalay ku soo saaray qaraar lagu dhimayo lacagta lagu raaco gaadiidkani, waxaana ka soo heshiisay darawaliinta gaadiidka tigta iyagoona cambaaraya hadalkani ka soo yeedhay xogayaha dowladda hoose, waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan. xaggii shidaalka sixir barar aad u badan baa naga yimi, cashuurihii wax walba. markaa waxaanu ka hadlaynaa qaraarkii uu soo jeediyey shalay toole xogayaha dowladda hoose inay tahay mid qalad ah ayaanu arkaa, waayo sababtoo ah 1500 baa markii hore lagu qaadi jiray qofka, maanta 2000 bay maraysaa. xogayaha oo ku hadlay asagoo sixirka ka hadlay, sixirkaana annagu aanu ka cabanayna shidaalkii oo lagu qaali garoobay, maadaama shidaalku qaali garoobay macalsuuliyadii lagu galay ayaa 500 ahaba 1000 laga dhigay, maadaama suuliyadii 1000 shilin laga dhigay annaguna waxaanu qoontaysanayn inaan 200 shilin tigaa ka dhigno. hadduu xogayo wax jabinayo magaaladu waa wada sixir barar ka hadla xogayo sixir bararka waddanka shaahi wax walba cid walba sixir barar bay wadaa. markaa muxuu u eegayaa bajaajka yaryar ee 1500 qaadaysa maanta 2000 laga dhigay suu eega muu ilaayo dusha sare bariiska Omar muxuu ilaayo way iyo raashinka Omar markuu ilaayo muu shidaalka ilaayo. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan halkan uga sheegayaa xogayaha hadalkiisa la ka soo baxay inaanu hadal munaasib ahayn, maadaama nahay gaadiidlada bajaajka shidaalkii litirkii 5500 wuxuu nagu marayaa 8500. xoogayuuna kama hadlin dee shacabka dantiisa wuxuu ka hadlay jeebkiisa. maxay ahayd jooloy wuxuu yidhi kaalmaha soo xidha soo sheega qofkii shidaalkaad ku qaaligaraya, idinkuna rakaabkii 1500 uga dhigay buu yidhi markii 2000 aanu ka dhignay. taasina wax impossible maaha. waxaanu leenahay adeer wixii dani noogu jirto ma anaga danteeda. waxaan leeyahay xoghayuu naguma haysto dee baabuurta annagaa leh, waxa weeye nima gaarigayga iguma haysto, ama laba ka qaadaya ama saddex baan ka qaadaya, waayo wax waliba ay qaali garoobay, shidaalkii baa qaali garoobay, maciishadiiba kacay, suuliyadii baa ilaa baalashkii baa qaali garoobay. waxa weeye marka labada yada kundeesh xoghayuu ilayni dadka dan yartaa qaada margaha ayuu ku digan. waxa weeye waxaanu leenahay labaad sheegtay saddex baanu ka dhigaynaa. hase yeeshee waxaanu ka cabanaynaa wada xumaan sixir barar oo shidaalkii aad nagu qaali garoobay, wadooyinkii waxaan ku idhi dhibaato weyn aanu ku qabno, cashuurtii waxaan ku idhi mid hoose iyo mid magaranaysa 6 biloodba labadaba laga qaadin. dhan kale mar aanu maanta booqanay xafiiska xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur si aan wax uga weydiinay qaraarka uu soo saaray maalinnimadii shalay ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii sida tan. waxaan ku sheegay marka u horeysa tigo keligood baa shidaalku gaar ugu kacay, waa su'aal haddii jirto si sheegayaan mise haddii shidaalku kaco gaadiidkoo dhan buu ku kacaya. su'aasha qof kasta caqli lagu garanaya. gaadiidkii kale waxba may kordhin, wax ay kordhiyeen ma jirto, waxaan ka hayno warna ma jirto, tigaha oo kaliya ayaa kordhiyay. halkan markii xafiiska igu yimaadeen gudidooda aan wada hadalnayna way qirteen arrintaas waxna waa khalad, aanan ku noqonaa bay yidhaahdeen. dabadeedna waxay noqotay inaan u shaacino si public ah oo ay kulligood u maqlaan in aan qofna laga yeelayn qof sixir barar ka qayb qaata, qof dadka laftooda iyadoo maanta abaarana ay waddanka ka jiraan ku tacadiya. ma aqbalayna markaa bilaa sabab inuu qofku siduu doono wax isaga kordhiyo ama isaga isticmaalo. haddii wax la kordhinayana sifaba hadday timaado halkan aynu qofku loogu imanaya waanu la eegaynaa wixii macquula, balse laakiin anaa iska kordhinaya oo bilaa sabab baan ku kordhinaya waxaanu yeelaynaa maaha. gaadiidkani tigta ayaa kaalin muhiim ah ugu jira bulshada gobolkani Togdheer. waa Cabdiraxmaan Ciise, telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.